xilli Ethiopia ay la kulmayso cadaadis xoog badan oo uga imaanaya xagga reer galbeedka gaar ahaan faragelinta Mareykanka. Abiy Ahmed waxa uu ku mashquulsan yahay u gacan haadinta Moscow. waa mid ka mid ah qodobada adag ee isku hayaan Washington oo doonaysa inay lahaanshiyaha gobolka kaligeed ku naalooto. laakiin Abiy Ahmed waxa uu muuqdaa mid tabahaasi ka leexday, taasi awgeedna ay isugu dhaceen reer galbeedka. heshiis iskaashi oo hore u dhexmaray labada dal ee Ethiopia iyo Ruushka. mar kale haddana maanta waxaa la saxay iskaashi military oo muddo si qarsoodiya ku soo socday. generaallo iyo khubro u dhalatay labada dal oo madasha saxiixa ka hadlay waxa ay sheegeen in macnaha iskaashigan uu daaran yahay dhinacyo badan oo la xiriiray sidii Ethiopia ay uga faa'iideysan lahayd arrimaha military ee Ruushka. 3 maalmood oo ay u socdeen wada hadallada labada dhinac ee Moscow iyo Addis Ababa ayaa lagu sheegay war-saxaafeed ka soo baxay Ethiopia in isla go'aamiyeen qorshaha wada howlgalka degdega ee dhanka militariga, kaasoo ay Addis Ababa u aragto mid ugu fadhiya dhankeeda muhiimad weyn waqtigan. 11 fadhi oo ka horreeyay midkan ayay sheegtay warbaahinta dawladdu maamusho in la soo maray, kuwaasoo dhammaantood salka ku hayay sidii Ethiopia iyo Ruushku ay iswadajir uga howlgali lahaayeen, iyadoo Ethiopia ay uga faa'iideysanayso gacan iyo gargaar ay ka hesho xilligan dalka Ruushka oo ay u aragto bahwadaag waqtiyada adag ay wada howlgalaan. wasiiru dawlaha gaashaandhigga ee dawladda Ruushka Martin Lowry oo heshiiskan goobtii lagu saxiixay ka hadlay waxa uu sheegay in labada dalba ay ugu jirto faa'iido weyn. xiriirkooda ayuu ku sifeeyay mid soo jiray sanado badan oo aan maanta iyo shalay midna bilaaban oo una sii waari doono. ahmiyad weyn ayuu noo yahay inaan maanta soo afjarno doodo 11 fadhi socday 3 maalmood ee aan halkan joognay. waxaan aragnay wax badan oo ku saabsan wanaagga ay leedahay iskaashigu. annagu waxaan u haysanaa Ethiopia saaxiib qarniyo ah. iskaashiga cusub ee military waa xoojinta xiriirkaas oo abuuraya wajiga rasmiga ah ee waqtigan ay tahay inaan wadajir u howlgalno, ayuu yidhi wasiiru dawlaha gaashaandhigga ee dawladda Ruushka. madasha saxiixa heshiiskan cusub oo ay joogeen inta badan saraakiisha ciidanka Ethiopia gaar ahaanna waxaa laga dhex arkay qaybaha ugu sarreeya nabad sugidda, waxayna ka dhigan tahay inay tahay tallaabo ay Addis Ababa fariin ugu dirayso Washington oo uusan hadda wanaagsaneyn xiriirka kala dhexeeya. dadka la socda dhaqyada ka socda gudaha Ethiopia waxa ay leeyihiin Mareykanku kalkii hore ayay ogaadeen kharaadadka Ruushka ee ka muuqda Addis Ababa inaysan ahayn kuwa sahlan, waana midda keentay inay garowsadaan Abiy Ahmed inuu ka leexday wadadii ay doonayeen inuu ku wada Ethiopia ee ay dhankooda hoggaanka u hayaan. heshiiskan Ruushka iyo Ethiopia ayaa saameyn ku yeelan doona gobolka Geeska Afrika oo dhan, maadaama Ethiopia ay ka mid tahay dalalka saameynta ku leh gobolka, gaar ahaanna marka laga hadlayo faragelinta reer galbeedka oo 10 sano ee la soo dhaafay si muuqata ugu mareeyay Addis Ababa. hadda xaaladda Ethiopia gudaheeda ka taagan waqooyiga dalkaas oo ay ku dagaalameen ciidanka Ethiopia, kuwa Tigray iyo Eritrea, soo bixitaankii ciidanku ay ka soo baxeen, cunaqabataynta ay reer galbeedku ku soo rogeen xukuumadda Addis Ababa iyo dhammaan dhaqyada gudaha Ethiopia ka socdaba waxa ay uga dhigan tahay Abiy Ahmed inuu taageero hubeed iyo mid dhaqaale ka helo Ruushka, fursad weyn oo uu mar kale xukunka ku sii haysan karo. laakiin Mareykanka ayaa ka mid ah saamiyaasha waaweyn ee gobolka saameynta ku leh, kuwaasoo xilli kasta waxa uu doono la leeyahay waa uu ka bedeli karaa gobolka. ma sahlana ayay leeyihiin dadka siyaasadda falanqaynaya in Ruushku uu faragelin toosa ku yeesho arrimaha Ethiopia, inkasta oo bilihii la soo dhaafay ay si weyn xoog badan u gelinayeen Ruushku sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen Ethiopia, gaar ahaanna 2 sano ee la soo dhaafay oo ay si weyn iskula jaan qaadeen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xidho xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay. ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shariicada? ugu kaalay markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culuumta kale Islaamka.